إلا ماشى حندرت هستيسا وقلا ديكا waxaan kula wajigiisa waxa ku soo waraaba cunay Soomaalidu maalmihii ugu dambeeyay qaarkay dad leh hadaan nahay reer hebel xaafadda hebel anaga yeelan doona hadaan nahay reer hebel xaafadda reer hebel baan ka saari doona miliyadiin dalka wada saalaydii guranayo wada saalaydii baaranayo wada saawadkii laydiga qaadanayo Soomaali maryoolay karaad yeesha aqli yeesha dalkiina waxba kuma tiidin dalalka kalena waxba kama tiidin nin tiisi wax ku noqon waayna meel kale wax kuma noqonayo naxariis male maanta hadii laga gilgalan waayo arinta Soomaaliya dhan waxay qaluun shaq ku jira ha laakiin ilaah baa ka shifay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا ونكسي دلاتين بقى أخير تقاليد ميكس تقطع على ساكت شوكتان ولكن هلا برعوا بيد للسر هذا. وإحنا أركن إن شاء الله تعالى ويل الله هذا الهيء أو لقلب حي ودنه بيركي كليه عنده هنقولي معناها ميلو داي ما شفت معناها وحنا لفوت سنة قراءة madaxii baan la goosanin iyo gamcihii iyo laguhii baan la goosanin laakiin in alaala iyo intii uur ku jir la oranayay wala la baxay in iyo hungurina warkeeda bada waaba suuragal baxta carabkii wada doonayna macal goosteen waxaan inoo hayaa hooyadii wiilka dhashay oo hadashay oo sababtay in la ogaado ama arintan fashilanto arintaas waxa keenay waxa inooga sheegay doonto hooyadii iyo dab casro wada jooga marka ila dhageysta maamada wiilka dhashay iyo siday uga garanaysa uga faaloonayso habkii ay erankeeda ku ogaatay in maxay heeday la qashay bayla daawada illa meesha xundurta hoostiisa waqala diiga waxaan kula wajigiisa waxa ku soo waraaba cunay naxariis male maanta hadii laga gilgalan waayo arinta Soomaaliya dhan waxay qaluun shaq ku jira ha لكن إله ما كشفه إله واحد هو بيصدق كاقف ويقف لما فرن إسلام تسينا كده أنت سويت كده تبي على يفرع أنت صوفر حقك كنت به أنت كل إني أنا وياك على بيتك مركا إله ما كشفه مسج كودي ما هي نيجي مكان ترى يهود شن دولار نكون ترى ماشي بيتك ونين يهود فاق وقته مركا سان واقع مركا سان أوكاري الكيما يعني بيتك مركا سان أنت لا شفت ترشالي بس لا تلا سكان المساعد مثلا سا وأنتم وحكوا رأيني justice بقول إنا كذي لبيه توان عشان قاعدين يسدد توان نتلاقى دكتور I want to know بقول دكتور بس تبقى الشيء إن أديفر تلان أقول إنه إنا كذي يا إنه ما هاي وقبورات شو تعمل كاس شنو بركليان من الرجوع شو بركة لكوفر هو يفر إله هو ما يكون مردين وحسوي رجع سومالي رجع سومالي إنه قلت كذا إنه كوفر ننتين بالي يروي يا لما ما يريه ما إني نقول رأي والله بين ما فرنا لا باكل واحد ماضي سلاجته بس اساس واحد sababta keentay horta in ilmaha demogranisa la ogaado wax weeye waxay yiraahdeen COVID-19 macnaha xanuunkii halista ahaa ayaa ku dhacay xanuunka halistaana looma meedo dadka looma ogolaado waxa loo ogoliyo dadkaas haya iyo dhaftarka haya haduu dhitrasa lagu qaaday marka qofkii oo xanuun haynin ay loonaya COVID-19 baa helay ama xanuunkii baa dilay sida aweed ba qofkii la qaranaya adina oo digeeyo xanuunkii COVID-19 baa ku dhacay baa la yiri kiibo dhintay lama taabanin taasna waxay sababi kartaa in dad badan sida lagu qashay oo lagu dhaxraaciyay dad badan baa loo dhaxraaciyay bayna oran karnaa adigu sidaynu ka arkayno marka waxa weeye qof kasta ha arko qofkiisa marka uu dhinto ha arko ha ka bogto هلا تصاحب على صدق هو يدا سيعيش صفيسي كوسع والله قشاي وحبا لو قبقبتي بين waxa lagu qabtay male waa kala tagay hilibkiisi halkan oo dhan halkaas ka bilaabay ilaa hoos markaas aan qaracmay markaas ridacay gabdhii qabteen dumarkii qaylo inanta kiisi wata qaylinayso ay tiro abben oo markaas ay wada fureen waxba ma xilin saasata xisug may qaban marka rag waan aragnay ilaa inta la qalo dhan marka markay adduunkii ka wada bixiyeen wax sponge bay galiyeen meesha هذا ديجي كتير سبونج لكن كركي صدق دي والكتير دي مقلب عين واحد كتير ما سبونج ما كتير يا سبونج ما كتير سبونج ما كتير
isbunji waxa weeye baalkan joodriyaalka iyo buushka idhaha Soomaalida buushka kaasay ku gureen ka buuxiyeen meesha ya ana laakiin oo beerkii iyo wadnihii iyo kuma jirin waa feerihii ya hatta cunii bay kala bixeen ya hatta cunii bay kala bixeen waxaa COVID-19 lala baxay caloosha iska qasheen ya sidaasaynu la iska qalqalan COVID-19 lama baqasho sharciga laakiin way qashaan Soomaalida way u barteen waa waxay u barteen marka halkaas waa iska caddahay in la qasho wiilkii inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un inna lillahi ma qadara laakiin markii u horeysaan waaye ee masaajidkan mid baan niisay igu yaar war niisay igu yaar waran muddo anyway hooyadani ilmaheeda waxa ay ku ogaatay in ay tiri aan arko aan ka bogto maadaama intaas oo cishayna kigaanan arag imikana ay tiisi noqotay ii fura wajigiisaan arkay wajigii waxay aragtay indhihii oo lagala baxay oo runtii jirkii kalena uu qarsoon yahay taas aawadeed waxa ka dhalatay in jirkoo dhan la wada furo kadibna la arko jirkii kale oo dhan oo qalan oo xubnihii laga gurtay tani waxa ay sabab noqon kartaa in dad kale oo lagu tashanayena ay baaqdaan macnaha soo bandhigida la soo bandhigay waxaana suuragal ah in dad badan oo sidan oo kale loo aasay in sidan loo farataystay waa la ogaan karaa xitaa waalid kasta ama qof kasta qofkiisii uu aasay dib baa loo fadhi karaa dib baa loo ogaan karaa meydkii inuu qalan yahay iyo in kale macnaha waa la ogaan karaa haddii loo tago because dee sanad ama 2 sano ayuun bay noqonaysaa 30 qof intii u dhaxaysay waayo coronavirusku waa 2 sano ku dhow yahay sidaan filayo wuxuu ku dhow yahay 3 sano ku dhow yahay 2 sano iyo dheeraad buu caadi inoo hayay oo adduunka haystay si kasta ay ahaataba arintani arrin laga aamusana maaha arrin loo dul qaadan karayana maaha inay family soo qori ka cawdaana maaha waa in dhammaan ummadda islaamka ee Soomaalida halka degani ay meel cad ka wada istaagaan hooyadana u hiiriyaan dhakhtarkan ninka baadhay ee furtay ee marxuumka magaranaysa ajasha dhaafi way dileen macnaha way baadheerun maaha way goosteenun maaha isagoo nool bay dileen bay noqonaysaa macnaha lalama sugin ba inuu coronavirus uu dilo iyo inuu coronavirus ku dhacato marka waxaan la hooyada garab istaaga u dooda xaqeeda u keena ubadkiina iyo dadkiina ilaashada Soomaalidu maalmihii ugu dambeeyay qaarkay dad leh haddaan nahay reer hebel xaafadda hebel anaga yeelan doonaa haddaan nahay reer hebel xaafadda reer hebel baan ka saari doonaa malihidiin dalka wada saalaydii guranayo wada saalaydii baaranayo wada saawadkii laydiga qaadanayo Soomaali maryoolay garaad yeesha aqli leh yeesha dalkiina waxba kuma tiidin dalalka kalena waxba kama tiidin nin tiisi wax ku noqon waayna meel kale xukuma noqonayo anyway hadal iyo dhamaan waxa leeyahay meel kastoo joogtaan kulli qabiil iyo qolqolaas ku eeriyanaysaan xitaa haddii Soomaalnimo ay dhimatay islaanta cid alali cid ehel iyo qaraabo iyo qabiil ugu dhow ha u kacdaan laha intaas baa oran laha ilaahay khaatimada khayr hayno khatimo intii muuqaalka ku xukumay doonana waxa idiga tagayaa sidaa iyo amaana Allah dabcasarna xilay shaqo wacan oo wanaagsan bad qabatay guul iyo gobonimo ayaa ku leeyahay dabcasar sababta dabcasar ma aha markii ugu horeysay maamo sidan oo kale u garab istaago waxaan arkaynay maamo maalmo hore laga qaatay ilmihii laga qaatay iyadoo laga qaatay lacag siiyay u dooday soo bandhigay garab istaagay oo caawiyay markastana taas dumarka badanaa oo caawiya mashaakil kasta iyo dhibaato kasta oo halku jooga ka dhacdana uu ka odayeeyaa uu ka halgamaa uu ka Soomaaliyeeyaa waxaan oran lahaa dadka kale odayaasha wadamada kala jooga sida dabcasar u halgama oo hal la helo meel walba laga helo dabcasar oo kale aabo maasatiin intii muuqaalka ku xukum doona xad leeyahay bye bye